soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aynu ku eegi doono horumarka uu sameynayo garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho iyo guud ahaan bilicdii magaalada Muqdisho oo wax badan iska bedelaya. يابا هدي أقرأ شبوح ديارة اللي هبينا هلا يابين haddii xilli dambe saaxiibkaaga uu soo waco uu kugu wargeliyo in uu ku sugan yahay garoonka diyaaradaha taxina uu u baahan yahay
muqdisho mar kale waxay bilowday xilli habeena in diyaaraduhu ay soo degaan ayna ka duulaan taasina waxaa markhaati ka ah muuqaalka maanta ku muuqda diyaaradda Juba Airways waxay nasiib hooday ayaanba u yeelatay inay noqoto diyaaradii ugu horeysay ee 100 rakaaba xilli habeena 8 fiidnimo muqdisho kala soo degta way adag tahay qof walba inuu ku soo dhiirado in Soomaaliya xilli habeena diyaaraddu u soo raaco balse xilligan waayaha iyo waqtiga ayaa inoo suura galiyay in garoonka muqdisho ee aadan cadde international airport xilli habeena gagadiisa caalamiga aan ku sugannahay waa taa diyaaradii soo degaysa ayadoo nalkeedii soo bidhaamaya garoonka diyaaradaha ee muqdisho waxaa ku sugan oo aad u eegaya soo dhaweynaya diyaaradda mas'uuliyiin ka socotay waaxda duulista hawada immigrationka iyo waliba sidoo kale qaybaha kale ee bulshada suxufiyiintu kama marna iyo dadka aaminsanaa xamar diyaarad habeenka ma soo degi karto laakiin waqtiga ayaa mar kale heer muqdisho u saamaxay ayay soo caga dhigatay diyaaradii Juba 100 qof oo rakaab ayayna wadaa diyaaradaha dalka Soomaaliya waxay intooda badan ku degi jireen haddii habeen ay noqoto garoomada Jomo Kenyatta Addis Ababa Airport Djibouti iyo waliba sidoo kale Istanbul taasi oo qofka muwaadinka markii halka lagu dego hotel uu seexan jiray isla markaana habeenkii ay suuragal tahay inuu ku dhixi jiray eheladiisna halka ka soo wacan jiray laakiin iminka haddii ay suuragal ku noqoto in nasiibkaaga safar uu noqdo inaad xilli habeen ku soo aado garoonka muqdisho waa ka furan oo nololkiisu ay shidan yihiin waana shaqeynaya dad fara badan oo ah dadkii sugaya ehelada imaanaya ayaa garoon gudihiisa ku sugan waxayna iminka diyaar u yihiin inay baxabeeyaan eheladooda amba asxaabtooda xilliga habeenka muqdisho ka soo degay farxaddu dhinac walba waxay ahayd mid dayman ah waxaana ka dareemaysaa dadkii diyaaradda ka soo degay oo ayagu ogolaa inay nala hadlaan waxayna Soomaali Cable ku dhahayeen aynu codkeena dhiibanno dareenkeena aanu muujino haddaba qaar ka mid ah dadkaasi ayaan fursad siinayaa sida ay u arkaan dareenkooda ku aadan in xilli habeena ay muqdisho ku soo degaan magacaygu waa xaaji maxamuud nuur xasan waxaan ka xijaydi ka timiday oo galabta ka soo baxday haddii alla ku weedmaayo jiddo aan ka mid ahay waxaana ku faraxsanahay iyadoo hamiina garoonka alla ku weedmaayo dawladda Soomaaliya kor allaha ka dhigo riyaan waxaan ka imaaday xaramka insha Allah wallahi bilaa aad u faraxsanahay ma sha Allah habeenimo inaan inta imaano qof walba oo suuragal ay u noqotay in garoonku ka soo dego kuma dhiirin inuu iska baxo laakiin wuxuu ku gaafureegay uu ku meereysanayay garoon gudihiisa si uu u arko garoonkii muqdisho habeen shaqeynaya waana taas mid keenta shucuurta dadka inay bedesho muqdisho waa kale ayaa u dilaacaya pilotkii kaxeynaya diyaaradda ayaa isaguna la wadaagaya dareenkiisa iyo sida suuragal ay u noqotay muqdisho in diyaarad weyn oo cargo iyo dadba wada xilli habeen ay ka soo degato ayadoo waliba mas'uuliyadaasi uu isagu qaaday diyaaraddaasi xilli habeen inuu soo dejiyo
ma iska soo degatay ma qiyaas baa lagu soo dejiyay mise garoonka muqdisho waa lagu soo degi karaayo waxay u soo degtay qaab aan cabsi iyo dhiilaba ku jirin isaga ayaa nala wadaagaya. First of all, I am very glad to meet you here in the night time. It's a big event. It's event very huge one and very important for Somalia, yeah? Because now you're more open. Now you're really international airport. Not only operation from sunrise to sunset, yeah? Now you're more open for the world, and to be honest, I'm happy because I'm not expected so good operation in the night time. Edge lights very good, very bright. Of course, it will be better in the future to have at least VOR or maybe ILS, but at least now it's acceptable. Yeah. It's acceptable for normal operation. Yeah. My congratulations for all Somalians. Thank you. Thank you very much, Captain. Thank you. laba kamid ah kabtanada Soomaalida ah ayaan fursad siiyayna inay bal ka hadlaan dareenkooda maadaama Soomaali ay yihiin in Muqdisho xilli habeen diyaaradii ay ku soo degato iyaguna ay qayb ka ahaayeen dadkii mas'uuliyadaasi diyaaradda inay soo degato qaaday waxa garab taagan wasiirka duulista hawada Maxamed Cabdullaahi Omar balse marka hore ayaga ayaan fursad siinaya magacaygu waa Axmed Maxmuud waaye duuliyaha diyaaraddan adirtan Juba Airways oo maanta caawa ugu horeysa Muqdisho soo degday waan ku faraxsanahay horta hore in wadankii ayaan sanado badan in diyaaradda ka soo degi karin oo caawa ugu horeysa aan soo laabanay oo equipment fiican oo dawladda Soomaaliya hagaajisay aad ugu faraxsanahay qalab fiican runway lights noo loo rakibay ilaa iyo 5000 feet ka soo aragnay ilaa 7 kilomitir wax lagu qiyaaso waan ku faraxsanahay dawladda Soomaaliya oo ku mahadcelinayna qalabyo kale oo casri ah iyo adduunka ka jirna insha Allah warajeynayna insha Allah in loo kordhiyo هذا كابتن إدريس هذا وحن بدل قلادة زيارة كانن عام بحنا إن شاء الله فاست فلايت مركا سيدرونتي أد بقول بحسن دورة الفدرال كصومالي government كا ثقافي عام بقبتين وايو إربور كان سنة بدن لقمة دول الهوين كي ولا لقمة كعين مركا عاو وهيستوري واي جوبا شيء جوبر إيرويز مركا the happy way to fly أد بقول بحسن هاي وحنا حتى علينا دولة الفدرال government صوماليا يراي خير خوز زيادة إن شاء الله صفة وحيالك على كده ما قلبيها أو latest تكنولوجيا اللي هو كرديان هذا مسنتين وأنا مسنتين أديان. عاوة وهابينكي نوجو الرئيسي أف تضبي 30 سنة أي هابين ديورد نشط أوين أو باسنجر ودا يسود دكتور فلله الحمد سيد نبض أي ديورد كسود دكتي بايلوت كعيان وحي الرو أو رئيسي الله شيء مركز سود دكتي si aan u hubinno qalabkii aan rakibnay oo runwayga inay sidii loogu talagalay u shaqeynayaan pilotku war farxad loo siiyay wuxuu ii sheegay markii koowaad oo uu dul maray markii hore uu dul maray oo dhinaca badda ayuu ku degashada ku soo sameeyay markuu dusheena maray airportka dushiisa marayay 5000 feet ayuu dhulka ka sareeyay wuxuu ii sheegay markaas inuu arkayay nalalka runwayga markuu soo jiray uu soo deganayay wuxuu ii sheegay asagoo 7 kilomitir noo jira inuu arkayay nalalka loo yaqaano bubble lightska oo diyuuradu ku degtaan iyo runway lightska labada uu arkayay 7 kilomitir asagoo soo jira distance dhulkana uu jiro 5000 feet marka waa calaamad guud ah operationkii waa ku guuleysanay qalabkii aan rakibnay oo loogu talagalay diyuuradu inay habeenkii isticmaalaan sidii loogu talagalay oo standardka ay u shaqeynayaan marka diyuuradaha kale iyo airlines kale dhammaantood waxay noo tahay farxad in pilotkii noogu horreeyay caawa noo soo degtay diyuuradaha kalena ay ku daya doonaan hadduu ilaahay yiraahdo wariyaashu waxay tabinayeen muuqaalka quruxda badan waxayna dhexda u xirteen in ay markaasi muujiyaan bal dareenkooda ku aadan iyagoo arkaya diyaarad xilli habeen soo degaysa qaarkood suxufiyiinta waxaa ka mid ahayd kiin Cumar Makaraan oo garoonka ku sugnayd kana tirsan shaqaalaha telefishinka Somali Cable xilligaana xilli dambe habeen ah diyaar u ahayd in ay warbixintaas quruxda badan bulshada la wadaagto 27 sano kadib diyaaradda Juba Airways waxa u suurta gashay inay xilli habeenaha ay ka soo degto garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho 27 sano kadib ayay rakaabka caawa soo gaaray magaalada Muqdisho waxa ay nasiib u yeesheen inay ka soo degaan garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho tani waxa ay muujinaysaa iditaalada dhinaca horumarka ay ku tilaabsanayso dawladda federaalka Soomaaliya iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed markii saadaasha hawada lagu soo wareejiyay gacanta dawladda Soomaaliya
ee la yiri dalka Soomaaliya hawadiisa waxa laga maamulayaa magaalada Muqdisho waxay ahayd habeen kale oo farxad badan markii la yiri garoonku waxa uu shaqeynayaa xilli habeena oo nolol lagu xiray nololkuna ay iftiimeen oo Muqdisho meel badan laga arkay waxay ahayd guul kale oo haddana u soo hoyatay dawladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed intoodaba laakiin garguuradka loogu jiray horumarka magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka Soomaaliya wuxuu ahaa mid soo taraya tan iyo markii la unkay ama la bilaabay in guntiga la xirto oo hore loo socdo wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Maxamed Cabdullaahi Omar oo dareen farxad leh ay ka muuqatay ayaa dhex taagnay diyaaradda waxaana ka hadlaya isaga qudhiisa diyaaradda Juba Airways oo xilli habeen soo degtay iyo garoonkii dhowr jeer meediyaha uu ka yiri uu furan yahay habeen markii ugu horeysay dad shacab oo boqol ka badan inay ka soo degaan isagoo aad u faraxsan ayaan mikrofoonka siinay waxaanu la wadaagayaa bal xogta ku aadan in diyaaraddu ay soo degatay iyo qaabka ay suura gashay iyo waliba dadaalkii loo galay sida aad dhamaantiin arkaysiin garoonka aadan cadda international airport waa international caawa waad arkaysiin wuxuu furan yahay subaxii 6 ilaa iyo habeenkii 10 inkastoo laga soo degi karo waqti alla waqtiga la rabo laakiin shaqaalaha waxay available yihiin waxay diyaar inoo yihiin oo inoo joogaan airportka ilaa iyo 10 habeenimo diyaaradda commercialka ay hadda waad arkaysiin inta leeg ay soo degtay ayadoo 200 oo qof wado ay soo degtay haddana way ka duuli doontaa airportka marka insha Allah taala hadda iyo wixii ka dambeeyay waxaan rajaynaynaa diyaaradaha kalena inay ku dayan doonaan garoonkan uu inoo furan yahay pilotka sidaad arkaysiin ka maqlayseen waa international standardkii oo dhan waan la kulannay intaana waa ka sii hagaajin doonaa haddii Ilaahay ka raali noqdo waxaan u mahad celinaynaa dhammaan shaqaalaha airportka shirkadda Favori immigrationka Amisom poliiska iyo dhammaan NISA inta ka howlgashay airportka dhammaan shaqaalaha oo idil suura galiyay arintan madaxda qaranka oo inoo suura galiyay dhammaan ayaan u mahad celinaynaa waxaan ugu hambalyeeynaa shacabka Soomaaliyeed hadda kadib inay yeelan doonaan inay bixi karaan xilliga ay rabaan ay imaan doonaan haddii Ilaahay ka raali noqdo aad ayuu u mahadsan yahay wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Maxamed Cabdullaahi Omar hala yaabin Muqdisho haddii lagu yiraahdo horumar baa dhinacaas ka dhacay Muqdisho maanta waad aqbali kartaa wax walba oo horumar oo lagaaga soo sheego inkastoo Muqdisho ay jiraan weli boogo iyo haara ku taagan oo ah baqdinta qaraxyada haddana dhinaca kale Muqdisho waxay noqonaysaa dheemankii madooba ee cadceedu ay qabatay qof walba loogama sheekeyn karo horumarka ka jira magaalada Muqdisho laakiin markii aad muddo yar maqnaato soo noqoshadaada waa dareemaysaa guulaha waaweyn ee la gaaray waxaa ka mid ah marka qofka garoonka uga soo dego in xilli habeena gaadiidku ay soo qaadayaan oo si nabada u deegaankiisa ugu laabanayo si halkaasi ugu hoyaa tago iftiinkaas iyo leerarkaas ay u jeedaan waxay ka baxayaan garoonka Muqdisho tani waa riyo dhaqsi rumowday oo dad fara badan ay sugayeen haddii aan taariikhda dib u milicsado garoonka Muqdisho wuxuu ka mid ahaa garoomada lagu jecel yahay qaaradda Afrika wuxuu ahaa garoon habeen iyo maalin shaqeeya laakiin muddo ku dhow 30 sano garoonkani ma shaqeyn hadda waxaa si cad idinkugu muuqanaya in garoonku habeen uu shaqeynayo waxaana jiri doona duulimaadyo kale iyo safarro kale oo toos u bilaabanaya dhammaantood diyaaradaha internationalka ah iyo kuwa localka ahna habeen ayay soo degayaan inkastoo weli goboladu ay adag tahay in habeen laga soo safro dadka Soomaaliyeed boqolkiiba 90 diyaarad ayay raacaan maadaama goboladu ay kala xiran yihiin maadaama dalka Soomaaliya uusan tareen lahayn maadaama dadka Soomaaliyeed aysan qabin wadooyin wanaagsan oo ay ku safraan haddana waxay magan u yihiin diyaaradaha inay raacaan waana taas tan keentay dadka Soomaaliyeed haddii gobol iyo dibadba ay aadayaan inay diyaarad raacaan laakiin hidadiilada iyo rajada weli way jirtaa Soomaaliya waxay noqon doontaa mid hore u sii socota marka dhan walba laga eego barnaamijkii gaarka aynu ku eegayna bilicda magaalada Muqdisho iyo horumarka garoonka Aadan Cabdulle International ee magaalada Muqdisho inta ayaan ku soo gabagabeynayaa waxaa tabinta idin la socodsiinayay anigoo ah Cabdicays Cabdullaahi Maxamed Really dhanka kaamirada waxaa gacan naga siinayay cameraman Salah Nuur Muumin waxay gala qayb gashay Kiin Cumar Makaraan farsamada waa Hashim Ceelaawo iyo Farx UK waa bahdii Somali Cable oo isku duuban ee Muqdisho idin leh nabadgelyo horumar iyo baraaro wacan